intaasi kadib xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo kulanka ka hadlay ayaa guddoonka iyo xildhibaanadaba u jeediyay in la magacaabo guddi baarlamaani ah oo baara kiiska sarkaalad Igraan Tahliil. waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino annagoo ah xildhibaano Soomaaliyeed in kiiskii Igraan Tahliil guddi baarlamaani ah oo muxuu ahay arrintaas isku soo dawrido oo cadaaladda horgeeyo oo kiiskaas qofkaas muwaadinada ay Soomaaliyeed muxuu ahay si dhab leh muxuu ahay meeshu galay iyo sida uu yahay iyo khilaafaadka dadkii lagu tuhmay ama dadkii la rabay inay jeeyaan dhaxdooda ka jira dad soo aruuriyo baarlamaankana ka soo siiyo warbixin ka soo siiyo. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in si loo helo baaris dhab ah oo lagu sameeyo kiiskaasi in la sameyn doono guddi gaar ah oo arrintaasi u xil saaran. ummadda Soomaaliyeed matalaadii meesha u fadhiday xuquuqdoodii wixii dhibaato ah inay xukuumadda cid u xilsaaran inay ku dabagalaan waa waajibaadkeeni marka toonsi jeedinta aad ay u fiican tahay kulay ay go'aana baarlamaanka maartay talaka gaari doona insha Allah in guddi loo saaro waa wax jira in kasta waqti lagu jiro oo kala guur ah xukuumadii horan waqtigeeda dhamaaday tii kale aan la dhisin wali lagu jiro haddana baarlamaanka arrintaas meel bu saari doona insha Allah guddi aan u magacaabayna.